nabadgelyo gabaray ma doonaysaa inaad nolol la wadaagto nin calool leh oo jirkiisu uu kala sareeyo dabcan waa maya taasi waxay keentay in ragga baryahan dambe ay ku bataan jiimka laakiin jiimku keliya waxa uu qurxiyaa dhabarta qofka lama barbar dhigi karo saliidda subagga iyo hilibka qubada qubo oo muxuu ka wadaa ayaad isweydiinaysaa haddaba haddii aad tahay nin dhawaan guursanaya amaba aad saaxiib horay u badatay muuqaalkan adiga ayuu quseeyaa ee soo dhawow. tani waa sheekada Maxamed Sanka oo ah qabiir badbaadiye u noqday rag iyo dumar badan oo horay buuq iyo isqabqabsi u hareeyay noloshooda. Maxamed ma aha dhakhtar bartay cilmu nafsiga sidoo kalena ma aha dhiirigeliye nololeed oo inta hool weyn kiraysto kaagama sheekeynayo in lamaanayaashu noqdaan kuwa isjecel guurkana ay wanaajiyaan. laakiin wuxuu aaminsan yahay inuu sabab u noqday in rag iyo dumar isqaba wajiyadoodu la dhaldhalaalaan farxad kadib markii uu xal u helay toosinta iyo jaangoynta nashqad ciyaareed haadaan ka sii dhacaysa. aroos galaayo sida aroos ninka galaayo kale faanti ninka aroos galaayo kale ilaahay ma ku darnaaday rag xogaa macnaa oo markay ayagoo rabaan oo iska saaxanayo xujinaan waayana dakarkeeda loo isticmaalaa. ragga iyo dumarka infectionka uu dilooday ee qalajiyuhu wax ka tari waayay ayay sidoo kale daawo u tahay. toddobaadkan waxaa sare u kacay qiimaha lagu iibsado markii dhalinyaro badan ay ku xoontay suuqyada lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho kadib faham ay ka heleen sida garab midig ay u tahay qubada ragguna ay kaga caawin karto howlgallada muhiimka ah. تاني كلمة حل ناقي لما ناقي مقعلنا هذه بعشرة مركز تعبالي حل ناقي لما ناقي مقعلنا هذه طبعا بعشرة تربو أوانتوا معناها تربو معناها أوان مركب تربو باور معناها بعشرة أساس استعمالها حل ناقي أخوة مسبيعنيس اللي هو عرّا مشان مسكين تقديم معناها دلس تقولوا معناها كليان وكامل كده هنا ديش أو طلقش معناها. محمد سانكا أوكالي صاحب أوكالي موضوعا وحساسي dood dheer ayuuna na gelin karaa aniga adiguba adiga gaar ku noqdo walaalkay ay dhax gelin baashan laakiin haddana daawadani waa muhiim ee gabaray ninkaaga daawada hadduu u baahan yahay laba iyo saddex baa kaa daba keenay iska ogolaan kartid miya. Maxamed Sanka waxa uu sheegay in macaamiishiisu kaliya aanay ahayn kuwa Muqdisho balse xitaa Yurub kuwa ku nool uu u ciidamiyo waxa uuna ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed inay baqiilnimada iska daayaan oo ay dhug u lahaadaan qubada. waa la isku raacay in qubadu dhan kasta daawo ka tahay. waxaad isweydiinaysaa halkee baa ninkan kala xiriira ama ugu hagaaga ha degdegin iga hoo nambarkiisa ha ku caawiyo ninkan war saaxiibayaal infectionkan iska daaweeyaya.